madaxweynihii faqiirka ahaa waxaa la siiyey 5 milyan oo doolarka Mareykanka ah, balse waxa uu ka doorbiday in shacabkiisa uu wax uga qabto. Haddaba waa kuma madaxweynahaasi? Muuqaalka ayaad kaga bogan doontaa. Mukhtaar Wil Maxamed Wil Daada, madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Mauritania, waxa uu dhashay 1924 magaalada Boltimade ee ku taalla koonfur galbeed dalka Mauritania. Waxbarashadiisii aasaasiga ahayd waxa uu ku qaatay gudaha dalkaasi. Jaamacad ku taalla dalka Faransiiska ayuu ka soo dhigtay cilmiga sharciga ee loo yaqaano qaanuunka, waxaana uu ku soo noqday dalkiisa. In muddo ah kadib waxa uu ku biiray xisbiga Itixaad ee dalka Mauritania 1958, waxa uuna noqday xubnaha ugu cadcad ee u taagan qabashada xilka ugu sarreeya ee dalka Mauritania intii talada dalkaasi uu ku hayay guumaystihii dalka Faransiiska. Sanad kadib waxa uu aasaasay xisbi siyaasadeed. Rajadiisa ayaa ahayd inuu hogaamiyo dalka Mauritania xilligaasi oo ay ku jirtay xaalad siyaasadeed oo qallafsan. Shacabka dalkaasi ayaa aaminsanaa in aanay suurtagal ahayn in la unko dowlad madax bannaan oo cagaheeda ku taagan, taasi oo ka talisa guud ahaan dalka Mauritania, maadaama uu Faransiisku uu saameyn weyn ku lahaa. 1960kii ayay Mauritania xornimadii ay ka qaadatay guumaystihii Faransiiska. Caqabado dhowr ah ayaa ka dhex aloosnaa gudaha dalka, faqriga iyo gaajadu ay ugu horreeyaan. Waxa kale oo jiray caqabado dhanka dibadda kaga imanaya. Waddanka jaarka la ah ee Maghrib amaba Morocco ayaa ka soo horjeestay madax bannaanida ay heshay Mauritania. 1961kii ayaa loo doortay madaxweynenimada dalka Mauritania. Isla xilligaasi ayaa qaramada midoobay ay u aqoonsatay dal madax bannaan. Mukhtaar Wil Maxamed Wil Daada waxa uu gacan weyn ka qaatay meelmarinta qadiyadda Falastiiniyiinta. Muwaadiniinta dalkiisa ayuu ka mamnuucay inay booqdaan Israa'il. Safarro ayuu bilaabay uu ku tagayo dalalka Afrika oo uu kaga dhaadhicinayo inay xidhiidhka u jaraan Israa'il. Wil Daada waxa uu booqasho ku tagay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, xilligaasi oo dalkaasi loogu yeedhi jiray Zaire, halkaasi oo uu ku sugnaa muddo 3 cisho ah. Mukhtaar Wil Daada ayaa muddadaasi uu ku sugnaa dalka Congo aanu bedelin dharkii uu xidhnaa. Mobutu Sese Seko, madaxweynihii dalka Congo oo xilligaasi loo yaqaanay Zaire, ayaa siiyey lacag dhan 5 milyan oo doolarka Mareykanka ah si uu madaxweyne Wil Daada u qurxiyo qaab labiskiisa, balse waxa uu lacagtaasi uu ku shubay khasnadda dowladda ee dalkiisa. Muddo bilo ah kadib 1973kii ayuu madaxweynaha Congo Mobutu Sese Seko uu booqasho ku yimid dalka ay jaarka yihiin Mauritania ee Morocco. Madaxweyne Mukhtaar Wil Daada ayaa ka codsaday madaxweynaha Congo inuu isna soo booqdo dalkiisa Mauritania, isla markaasina booqasho rasmi ah uu ku yimaado. Dalabkaasi ayuu ka aqbalay. Markii uu soo gaadhay caasimadda Nouakchott ee dalka Mauritania ayaa madaxweyne Mukhtaar Wil Daada uu ku yidhi madaxweynaha martida u ah ee Mobutu, mudane madaxweyne waad mahadsan tahay hadiyadda qaaliga ah ee aadna siisay. Madaxweynaha Congo ayaa weydiiyey sababta uu ugu mahad celinayo Mukhtaar Wil Daada. Madaxweynaha Mauritania ayaa ku jawaabay, 5 milyan ee aad i siisay waxaan ku dhisay goobo waxbarasho oo ay wax ku bartaan daayarta reer Mauritania, waana sababta aan kaaga mahad celinayo inaan naftayda qurxiyo. Waxa ka mudan inaan gudo xaqa shacabka Mauritania kuwaasi oo iga dhigay madaxweyne. La dagaalanka jahliga iyo faqriga ayaa ka horreeya quruxda muuqaalkayga, ayuu yidhi madaxweynaha Mauritania Mukhtaar Wil Maxamed Wil Daada. Madaxweynaha martida ah ee dalka Congo ayaa isna yidhi hadal galay taariikhda Afrika. Hadalkaasi ayaa u dhignaa, haddii qaaradda Afrika laga heli lahaa 10 hogaamiye oo noocaaga oo kale ah, Afrika jahliga iyo faqriga ayaa ka suuli lahaa. Mukhtaar Wil Maxamed Wil Daada, madaxweynihii dalka Mauritania, ayaa sanadkii 1987kii afgambi militari lagaga tuuray xukunkii dalkaasi. Taariikhdu markay ahayd 2003 ayuu ku dhintay dalka Faransiiska isagoo lagu aasay dalkaasi.